weydiinayaa dhiibista cabdikariin qalbi dhagax muxuu madaxweynuhu ka ogyahay su-aashaasi runtii waa su-aal muhiim ah waxaan ognahay in baarlamaanka soomaaliyeed ee golaha shacabku ee arrintaas ay ku sameeyeen debate ay aada uga hadleen ay ka soo saareen documentation ayna u codeeyeen maxaa yeelay iyagu waxa weeye waa hay-adda ugu sarreysa ee sharci dejinta markay codeeyeenna waxay gaareen go-aan waxaan aaminsanahay go-aankaas inuu yahay kama dambaysa maxamed amiin oo jarmalka jooga wuxuu leeyahay madaxweynaha waa salaamayaa wuxuu ku weydiinayaa waa maxay caqabadaha hortaagan ciidan midaysan oo soomaaliyeed oo hal meel ka amar qaata caqabadahaasi waxaan bilaawnay inaan ka shaqeyno ciidanka inaan isku dhafno oo aan isu keenno oo aan tababar cusub gelinno oo aan siino agabkay u baahan yihiin waxaan bilaawnay inaan siino mushaaharaadka oo hadda intii aan xukuumaddaani jirtay ama dowladdaani jirtay aan bixinay ciidamada annaga budgetkeenna miisaaniyaddeenna maxaan ku raahdaa qaybta ka ah taasna waxay keenaysaa intaas in ciidamadaasi ay noqdaan ciidamo tayo leh si ay uga